Sharma Boy ayaa noqday fanaanka ugu nasiibka badan Soomaaliya kasoo koofankiisa oo hawada galay safar degdeg ah ayuu ku tagay Mareykanka yaa geeyay sidoo ku helay maxay tahay sirta ku jirto si aad wax badan u ogaato marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto oo share gareysa saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook ee Cabdicis Xaliye iyo channelkeena goobta media Sharmaake Cabdinaasir oo loo yaqaano Sharma Boy ayaa ka degay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka isaga oo ka tagay dalka Zambia oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaa muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay Sharma Boy asxaabtiisa oo ka degay magaalada Minneapolis ayaga oo ka dhigay arrin kadis ah dad badan ayaa isweydiinaya sidoo ku tagay Mareykanka Sharma Boy oo muddo 2 sano ah kaliya fanka ku jiray xogta la helay ayaa sheegaysa in Sharma Boy ay Mareykanka u watay gabar muddo dheer xiriir jacayl kala dhaxeeyay ka hor guurka Malyuunmaanka ayada oo labadooda ay ka dhaxaysay ballan hore oo ay sababtay in Sharma Boy uu si fudud ku tago Mareykanka fanaankan dhawaangalka ah ay ka maseeraan fanaaniinta Soomaaliyeed fanaan kaliya muddo yar ku qabsaday saaxadda fanka Soomaaliya iyo qalbiyada Soomaali badan oo taageero uu ka haysto fanaankani Sharma Boy ayaa ah ruux qalbi dadkana aan iskala weyneyn taa oo sababtay in muddo yar oo fanka ku gilgilo saaxiibadiisina ay ka maseereen oo fanka isaga baxeen fanaaniin badan ayaa madaxiisa fanka uga tagay kadib markii ay ka cabsadeen in fanaankani uu ka magac sareeyo fanaankan ayaa ah fanaankii ugu horeeyay ee ka soo jeeda Soomaaliya oo ku guuleysta bilada fanaanka ugu fiican sanadka ee qaaradda Afrika oo dhan taa oo sababtay in durbaba Mareykanka la geeyo adigu sidee u aragtaa in Sharma Boy uu tago dalka Mareykanka aragtidaada qaybta hoose ee commentiga waa ay ku furan tahay mahadsanid haddii aad ku cusub tahay barteeda Facebook ee Cabdicis Xaliye waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto oo share gareyso saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook ee Cabdicis Xaliye oo aad follow dhahdo mahadsanid بابا ولي قال مصدق على طاي طبي لا ورقنا جوكتا منابلس انا كنت على دكا نحيا ابو مشكل امريكا والله انا سبرايز هادو كان صارمني ابو صدق جدي ماشي لا ولي قال مصدق على طاي طبي لا ورقنا جوكتا منابلس انا كنت على دكا نحيا ابو مشكل امريكا والله انا سبرايز هادو كان صار